Uganda dal qurux badan oo dhaca bariga Afrika leh harooyin waaweyn, duurjoog cajiib ah iyo taariikh xiiso leh. Ma ogtahay in Uganda ay hoy u tahay kala bar gorillaha adduunka? Ma rabtaa inaad ogaato wax badan oo ku saabsan dalkan hodanka ah? Haye, waxaan ku hayaa macluumaad xiiso leh. Xogta guud ee Uganda. Uganda waxay ku taallaa bariga Afrika. Waxay daris la tahay wadamada Kenya, Rwanda, Tanzania, Koongada Dimuqraadiga ah iyo Koonfurta Suudaan. Baaxadda dalkani waa 241,551 kilomitir square, iyadoo 41,000 oo kilomitir square ay biyuhu dul sabeynayaan. Dadka dalkan waa qiyaastii 49.2 milyan oo qof. waana dalka 31aad ee ugu dadka badan dunida. Magaalo madaxda dalkani waa Kampala, waana magaalada ugu weyn gebi ahaan dalka Uganda. Uganda waa mid ka mid ah dalalka ugu caansan bariga Afrika oo leh dhul hodan ah, harooyin, buuro iyo biyo dhacyo cajiib ah. Quruxda dabiiciga ah ee Uganda. Uganda waa mid ka mid ah dalalka ugu hodansan dhanka duurjoogta. waa hoyga kala bar gorillaha caalamka. Waxaa sidoo kale laga helaa 12% shimbiraha adduunka, taasoo Uganda ka dhigaysa jannada shimbiraha. Dalkani wuxuu qayb ka leeyahay harada Victoria oo ah harada ugu weyn Afrika. Waxaa la wadaaga wadamada Tanzania iyo Kenya, iyadoo ay u kala leeyihiin 49% oo Tanzania leedahay, Uganda oo 45% leedahay iyo 6% oo ay Kenya leedahay. Buuraha quruxda badan, dhul beereedka hodanka ah iyo biyaha durduraya waxay ka dhigaan Uganda meel dalxiisayaasha aad u soo jiidata. Taariikhda Uganda waxay xorriyaddeeda ka qaadatay gumeystaha Ingiriiska 9 Oktoobar 1962. Milton Obote wuxuu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Uganda, halka Kingi Mutesiga labaad uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay. 1971 Idi Amin Dada ayaa afgembi kula wareegay talada dalka, wuxuuna xukunka hayay ilaa 1979 ilaa markii dambe ay xukunka ka tuureen ciidankii Tanzania oo uu hogaaminayay Julius Nyerere. kadib dagaal dhex maray labada dal 1978 ilaa 1979. Madaxweynaha ugu waqtiga dheer Uganda waa Yoweri Museveni oo xukunka hayay tan iyo 1986. Dhaqaalaha iyo nolosha Uganda. Dhaqaalaha Uganda wuxuu ku tiirsan yahay beeraha, warshadaha iyo adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada. Lacagta rasmiga ah ee dalkan waa Ugandan shilling, taasoo la sameeyay 1966 markaas oo laga guuray lacagtii hore ee Eastern African Shilling, taasoo ay isticmaali jireen Kenya, Uganda iyo Tanzania oo hadda qayb ka ah Tanzania. Dadka Uganda waxay ku hadlaan in ka badan 40 luqadood, laakiin afafka rasmiga ah waa Ingiriiska iyo Swahiliga, halka inta badan dadku ku hadlaan luqadda Luganda. Diimaha iyo bulshada. 82% dadka Uganda waa Kirishtaan, halka 14% ay yihiin Muslimiin, kuwaasi oo u badan waqooyiga iyo bariga Uganda. Waxaa sidoo kale Uganda ku nool qowmiyado kala duwan, iyadoo qowmiyadda ugu badan ay tahay Baganda oo ah 16% dadka dalkaas. Jaaliyad Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ku nool Uganda oo leh ganacsi xooggan. Soomaalidu waxay u aadaan Uganda sababo waxbarasho, iyadoo dalkaas uu leeyahay macaahid caalami ah iyo nidaam waxbarasho iyo mid siyaasad qaxooti soo dhaweyn ah.